hagaag daawadashada qiimaha leh waa mar kale barnaamijkeeni wararka wacala dhinaca dunaasiyada waa qaybta saddexaad waa 9 Abriil waa 2020 waa mar kale barnaamijkeeni falanqeynta wararka warbixinaha dhinaca dunaasiyada gaanka gaandunida aan ku bilaabo qaybtan isla markaana ugu horeysiya daawadashada qiimaha leh ninkii u tartamayay ninkii labaad ee u tartamayay xilka sirreebka ee xisbiga dimuqraadiga ee Mareykanka Bernie Sanders ayaa ku dhawaaqay in uu ka haray loolanka doorashada ee sirreebka xisbiga isla markaana uu wadada u baneeyay haatan ninka ku kaliyeystay in uu markaasi hogaanka u dhufto xisbiga lana baratamo madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Joe Biden waxa uu Bernie Sanders uu sheegay in uu sidaas u sameeyay danta xisbiga iyo danta qaranka iyo in laga adkaado madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ku tilmaamay inuu yahay madaxweynihii ugu xumaa ee abid Mareykan soo mara haatan waxa ay ku waramaysaa warbaahinta ayadoo dhinaca liberalka ama dhinaca markaasi bidix aad ugu janjeedhay CNN-ka waxa la sheegay in arrintan uu aad uga shaqeeyay madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama oo asagu door weyn ka ciyaaray baa la yiri in Mr. Biden oo ah senator laga soo doorto gobolka Vermont uu markaasi ka haro Mr. Sanders oo laga soo doorto gobolka Vermont uu markaasi ka haro ololaha ama uu markaasi iska joojiyo waxaana haatan ay sheegayaan wararku in Joe Biden laftiisa oo asagu ah ninka hadeerto ku haray ama u diyaar ah inuu bisha November haddii doorashada Mareykanka ay xilligeeda ku qabsanto uu la baratamo Mr. Trump oo aad uga mahadceliyay saaxiibkii Bernie Sanders goortii horeysana Joe Biden waxa uu sheegay inuu san doonaynin inuu noqdo danayste sida daraadeedna wuxuu khadka telefoonka kula xiriiray Bernie wuxuuna kala tashaday talaabooyin ka mid tahay cidda uu asagu soo jeedinayo in madaxweyne ku-xigeen laga dhigo oo la tartanta marka ay noqoto tartanka ay wada gelayaan labada nin hadda aqalka cad fadhiya iyo labada qof markaas iyaguna u hanqal taagay si kastaba ha noqotee waxa la sheegay in Obama oo asagu markii hore aan cidna u kala heelin marka ay noqoto inta badan dhaqanka siyaasadda xisbiga gudihiisa in dhaweytana baalku ka qoyanaa dhinaca siyaasadda uu talaabo oo in xiga uu qaaday telefoon aad u badan uu u diray ayaa la yiri aqalka uu diray baa la yiri xafiiska uu Bernie ku leeyahay magaalada Washington isagoo markaasi aad iyo aad u raadinayay inay wada hadlaan dhowr jeer ay wada hadleen ayaa la yiri labadan xubnood waxaana Bernie Sanders ugu dambeyntii lagu qanciyay in uu iskaga haro ololaha waqtigana uu sii dheerayn maadaama aysan jirin ololo badan oo ka haray gobolada inta badan goboladii muhiimka ah oo dhan uu horay doorashooyinkiisa reebka ahaa ugu adkaaday Joe Biden oo asagu markaasi iskala dhex tartamayeen ama iskala dhex cararayeen xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa tanna markaasi waxa ay muujinaysaa inay inoo kala cadaatay qofka la tartami doona madaxweynaha dalka Mareykanka Mr. Joe Biden ayaa la aaminsan yahay in uu wajahayo loolan aad u adag marka la eego ayaa la yiri kaknaanta iyo madaalanimada Mr. Trump ayadoo aad loogu eedeeyo Mr. Biden inuu yahay nin markaasi runtii waxa la yiri aadna u daaweyn haddana waxa la yiri maadaama uu ku dhacay xanuun dhinaca madaxa oo kansarka madaxa mar uu ku dhacay laga yaabo in uu wax badan ilaawo gaar ahaan khudbadaha akhriyayo isagoo hadallada qaar kood si dhaxdhiga tusaalahan ka hadla waxyaalo mar hore laga soo tagay marmarka qaar koodna sheegta hadallo ay ka mid tahay inuu doonayo in loo doorto senator halkan nagala socotaan daawadayaal wararkii wacala dhinaca dunaasiyada caalamka oo dhan qodobada wararka wacala dhinaca dunaasiyada farikama qodna daawadayaal aan fiiriyo dalka Italiya wasiirkooda arrimaha dibadda ayaa warqad uu qoray waxa uu ugu mahadceliyay dalka Qatar waxaana uu sheegay in dalka Qatar ay garab taagtay xilli adag oo dalkoodu ay la dala dhacayeen masiibadii ugu weyneed ee dalkan soo fasaartay tan iyo intii ka dambeysay dagaalkii labaad ee dunida wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Italiya Luigi Di Maio ayaa waxa uu sheegay in wuxuu soo daabacay warqad uu qoray oo u diray dawladda dalkaasi Qatar oo iyadu soo dirtay 2 cusbitaal oo guuraya oo ah kuwa ku meel gaar ah oo ay u dhan yihiin qalabkoodiisa markaana ay ku xidhan yihiin 500 oo mid walba waxa ku xidhan 500 oo sariirood oo markaasi loogu talagalay in dadka lagula tacaalo waxa uu yiri anagoo ka hadlana xaaladda dalka iyaga haysata waxaan doonayaa halkan inaan uga abaal celiyo dawladda iyo qaranka Qatar sida ay noogu dalka ay garab taageen ama noogu hiiliyeen ayuu yiri waqtigan adag iyagoo noo keenay 2 cusbitaal oo midkiiba 500 oo sariirood ay ku xidhan tahay oo aan u baahanahay waxaan ilaahay ayuu mahadsanid Qatar Talyaaniga waxa uu noqon doonaa dal mar walba xasnaadatan dhanka kalena safaaradda ay Talyaanigu ku leeyihiin dalka Qatar ayaa waxay soo saartay iyadoo qaraar ay ku mahadcelinayso ama ugu mahadcelinayso dawladda dalkaasi Qatar iyadoo sheegtay in ay tani tahay taageero aan la ilaawi doonin mustaqbalka
waxayna yiraahdeen tani waa mid ka mid ah taageerooyinka yaab kale aanan ilaawi doonin abid hase yeeshee dalka isku tag Imaaraadka Carabta ayaa ahaa dalkii ugu horeeyay ee dal Carbeeda ee dalalka reer Yurub taageero u dira gaar ahaan dalka Britain oo ay gaarsiiyeen iyaguna taageero lixad leh oo ay gaarsiiyeen waaxda dhinaca adeega caafimaadka loo yaqaano National Health Service ee dalkaasi Britain taasoo ay sidoo kalena ay sheegeen inay uga mahad celinayaan iyaguna dhankooda halka dagala socda daawadayaal wararkii wacala dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan qodobo warbixino waaweyn 150 amiir oo reer Al Sacuudi ayaa la sheegay in xanuunka la ildaran yihiin sida uu soo tabinayo wargeyska afka dheer ee dalka Mareykanka ka soo baxay The New York Times inta badan wararka xasaasiga ah ee dalka Saudi Arabia waxa kaliya oo laga helaa dhowr jeer horena waa idin sheegay meesha laga soo xigtay inay yihiin warbaahinta dalka Mareykanka gaar ahaan wargeysada waaweyn ee Mareykanka kuwaas oo iyaguna ka sii hela sirdoonka quban gudaha dalka Saudi Arabia ee dalka Mareykanka ka socda waxa wargeyska The New York Times uu sheegay in 150 xubnood oo qoyska reer Al Saudi oo gaar ahaan kuwa dhaxal sugayaasha amiirada iyo waliba ragga madaxda ah uu xanuunku hayo ayagoo sheegay in qofka ugu liita darta uu yahay wiilka uu adeerka u yahay boqor Salman bin Abdul Aziz ee leeyahay Amir Faisal bin Bandar bin Abdul Aziz Al Saud kaasoo la sheegay inuu ku jiro qaybta xaaladda daran isla markaana uu ku rakiban yahay qalabka ICU-ga loo yaqaan waxa uu sheegay The Times sheegaysa in Saudi Arabia ay ilaa hadeerta ay soo riteen dad gaaraya 3,000 oo qof 41 qofna ay u geeriyoodeen xanuunka ayadoo sidoo kale Sacuudigu saacadihii ugu dambeeyay uu adkeeyay talaabooyinka magaalooyinka Jeddah, Makkah, Madiina, Riyadh iyo dhammaan magaalooyinka kale ee dalka oo dhan ayaa isku socodkoodii la joojiyay iyadoo boqor Salman bin Abdul Aziz uu goor sii horeysana amray in gabi ahaanba la sii daayo ayaa leeyahay dadka maxaabiista ah ee xirxiran ee dalkaasi ku xirxiran oo loola socdo xaaladooda si markaasi meel kasta ay joogaan lala socdo marka laga reebo kuwa dambiyada waaweyn galay ayaa la yiri boqor Salman bin Abdul Aziz Al Saud ayaa sidoo kale wuxuu amar ku siiyay dadka iyo amiiradaba inay u howlgalaan sidii ay dalkan u badbaadi lahaayeen baa la yiri halka dagala socotaan wararkii wacala dhinaca diblomaasiyadda 5 dal oo reer Yurubana Turkigu wuxuu gaarsiiyay taageero dalalka Balkaniska ayaa dawladda dalkaasi Turkigu waxay u kala dirtay 5 diyaaradood oo waaweyn oo xamuul ah kuwaasoo ay saaray yihiin deeqo dhinaca markaasi qalabka loo baahan yahay Mareykan ayaa la yiri dalalka la gaarsiiyay qalabka la iskaga difaaco xanuunkan ee ay xidhaan hawlwadeenada caafimaadka iyo sidoo kale waxa la yiri qalabka kale mashiinada neefta iyo kuwa kale ayaa waxa la gaarsiiyay dalal ay kamid yihiin Serbia, Bosnia Herzegovina, Montenegro, North Macedonia, Kosovo ayaa la yiri 5 dal ayaa 5 waxa yihiin dalalka ku tirsan The Balkaniska wadamada la yiraahdo waxa la sheegay in markaasi bahalaha ay dawooyinkaasi ku jiraan ama sanaadiiqda dawooyinkaasi ku jiraan lagu qoray fariintii halku dhigga dalkaasi Turkiga caanka ka ahaa kana soo caangarowday qarnigii 13aad ee uu adeegsan jiray wadaadkii Suufiga ahaa ee loo jiray Mevlana Jalaluddin Rumi kaasoo yiri waagaas mar dhibaato ka dhacday dalkaasi yiri waxa jira rajo ka dameysa masiibo kasta sidoo kalena waxa jira qorrax ka dameysa madow kasta ama iftiin ka dameeya madow kasta ayaa tusha kaga qornaa ayadoo dawladda dalkaasi Turkigu ay noqotay dalka ugu ballaaran ee ka tirsan caalamka islaamka ee deeq gaarsiiya dalal ay kamid yihiin laga soo bilaabo Shiinaha oo ay gaarsiiyeen Talyaaniga iyo Isbaaniya iyo sidoo kale 5 dal ee hadeerto jaamacadda Johns Hopkins ayaa iyaduna sheegaysa in dunida xanuunkan hadeerto uu dhaafay 1,500,000 oo qof uu soo ritay geeriduna ay dhaaftay 83,000 oo qof sidoo kalena ay sheegtay in dadka ka soo raystay ay u muuqdaan hadeerta inay gaarayaan 300,000 ruux jaamacadda Johns Hopkins University waxa ay isku markaasi cimaamaday inay wax alaalay wixii wara ee xanuunkaas warwareyntiisa ku saabsan ay soo gudbisay isla markaana ay sheegtay Saudi Arabia waxay ku dhawaaqday xabad joojin kumeel gaar ah oo 2 toddobaad socod doonta oo ay kaga joojisay duqeyntii xabadda ee ka waday dalka Yemen dawladda dalka Saudi Arabia war qoraal ay soo saartay waxay tiri xilligan maadaama ay dalkaasi Yemen ay u noqon karto mid u nugul xanuunka faafaha daran sida weyn dad marka u noqday waxay boqortooyada Saudi Arabia ay ku dhawaaqday inay bixiso 500 milyan oo dollar oo lagu taageero arrimaha gargaarka bini'aadanimada ee dalka Yemen waxa loo yaqaan la yiri ka jawaab celista arrimaha xuquuqul insaanka ama bini'aadanimada ee dalkaasi Yemen the UN Humanitarian Response Plan oo qorshaha markaasi loo sameeyay in ay qaramada midoobay kaga jawaabto dhinaca dhibaatooyinka aadanimo ee dalkaasi ka taagan sanadka 2020 waxaana sidoo kale dusha kaga dari doonaa 25 milyan oo dollar oo iyagana aan ugu talagalnay in laga hortago faafaha
ayaa lagu yiri war qoraal ah laakiin waxay tan khusaysaa dadka Xuuthiyiinta in ay joojiyaan xabadda ayagoo u daneynaya dadka reer Yemen ayaa lagu yiri warka ka soo baxay lacagtan 525 milyan dollar ay bixisay dawladda Saudi Arabia waxaa la sheegay in 500 milyan hore loo isticmaali doono sida ay sheegtay ka jawaab celista arrimaha markaas bini'aadanimada ee dalkaasi ka taagan ama qorshaha ay qaramadu bixisay the UN Humanitarian Response Plan for Yemen in 2020 iyadoo ay sheegtay in 25 milyan soo hadhayna ay gaar u noqon doonto faafaha daran in laga hortago Xuuthiyiinta ayaa dhankooda waxay sheegeen in ay soo dhaweynayaan xabad joojinta labada toddobaad iyo iyadoo duqeymihii oo dhan la joojinayo dalkaasina loo deynayo bal in marxadiisa si kale loo eego daawadayaasha qiimaha leh wararka wacala dhinaca dulansiyaadda qodobka ugu dambeeyana daawadayaal aan doonayo inay la wadaagana waxa weeye dalka Turkigu waxa uu ku dhawaaqay in dad gaaraya 149,000 oo qof ay u ogolaadeen ama ay ka gudbeen xuduudda ay la wadaagaan dalka Greek tan iyo 28 bishii February baa leeyahay sanadkan sida uu sheegayo wasiirka gaashaandhigga dalkaasi Hulusi Akar oo sheegay in dadkaasi ay ku dhawaadka gaaraya markaasi 150,000 ruux loo ogolaaday inay ka gudbaan xuduudaha dalalka Greek iyo Bulgaria oo isagoo sheegay in dawladdiisu ay u tabar weyday dadka reer Suuriya iyo dadka kale daba socda meel ay ku xareyso ama qaxoonti uga dhigto 10,000 oo markaasi ah dad magangeliya doona ayaa yaacay Turkigu ay ka digiso in marka qoraxdu si wacan u soo baxdo xagaagan laga yaabo in dad inta ka badan ay gudbaan dhibaatadana waxay ka timid kadib markii dawladda dalkaasi ay u taag weyday kuna qanci kari weyday dalalka reer Yurub inay talaabo ka qaadaan Bashar al-Assad iyo dalka Suuriya iyo dalkiisa Suuriya iyo dalkaasi dalalka kale caawinaya ay kamid tahay dalalka Russia iyo Iran oo ay ku joojinayaan dagaalada ay ka wadaan qaybaha gobolada waqooyi bari ee dalkaasi leeyahay Suuriya waxaana haatan ay dawladda Turkiga ay ka sii digaysaa oo digniinii ugu dambeeyay soo bixinaysa ay tahay inay tani aysan joojin karaynin haddii arrimahaas ay sii socdaan intaan ku joojiyo amaana